xalay saqda dhexe taqriiban 12 habeenimo anoo iska soo jeedo ayaa waxaa teleefon aad igu soo celceliyay lambar oo Turki ah. akhiiran waan qabtay taanan qaban horta masjidoo ii soo diray biluga carabiya oo ileeyahay si daruuri aan kugu baahanahay walaal iga qabo. قلت بسم الله أنا اللي اتصلت عليه أنا لا هضلي أنا أودري وأن لا هضلي وحنا وقف عراقي وحويان حال كيس حال وياهي هذا الكيس وهنا أي كجرتو وأنا ويديو محاربة وكوهيستو وإيشي كي مركا أول محودة هاي وحان مقلي صومالي ذا إيشيكتي الله أعلم صومالي مدين ذا إيشيكي إن أديك وحويان أرنت أني هيستو عاد حلين كرتو وقوة الإلهي وكسيي أيال إيشيكي ساسا كوسور هذه سبحان الله يعني حالكيga إلهي وحويان قف كلمه إلا أنت مويان ساسو يقول هذا الكيان هذا الله يابي هذا الكيان وحوقاتي تقريبا 6 دقيقة وانشيكي سن أني أسق مركاسان إلهي بان حسوسي. المهم قصة محية هذا مركا وحوده نيو قبر سقع عراقي ويان قبر بان جعل هذا وانقور سدي عنقي إيد الشيء كذب أبي هذا يحبا إسدقالني ورقضيه محكمة دال إيه كاني إلا قبل أصفر على وضحي والي قصبي قانونيا وإلا مرافورينكي قبل وانفوري حتى قبل وإن عدي إلا ما هل ليسو وحان مقلي إن قبل ننكل لو قوري ربو مركز شيخو ما دام أهل خير آتاي oo la ii sheegay arinta in adiga dadka wax u sameeyay wax u xallisid waxaan ka codsan lahaa in gabadhaasi qalbigeeda ii soo furto maxabadeyda geliso ninka oo lagu daray guursadayna in kiraahsiiso ay nacdo. Allahu a'lam de wuxuu iimayay inaan sixir iyo waxyaabahaas aan sameeynayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warkaan la sii wada waxaan ku iri imsaad bixin lahayd hadii aan waxaas lagu sameeyo dhaqaale imsaad diyaar la tahay wallahi wuxuu dhahay sheekh alli takhtaar maxaway waxa laga wada waxaad dooratid ayaan bixina hal mar gabadhaas inay jeclaato qalbigeed maxab ii gasho oo soo doonato ninkii guursadayna ay nacdo markaan ogaaday ninkii inuusan يعني واحد دينه هبا يراتي وصل لهين او يعني ان wax badan la faansi u baahan yahay murugsan yahay oo hinta ka muuqato jaanisna uu siinay dareemay baan waxaan bilaabay in Ilaahay xasuusiyo subhanahu wa ta'ala awal waxaan ku iri adima tukata wallahi sheekh waa tukan jiro laakiin gabadhan maxabadeeda iyo hawsheeda ay gashay salaadii waa iska dhaafay ma batukada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markii waxaan bilaabay in Ilaahay xasuusiyo shaqo uu ka shaqeeyaan weydiin ma shaqaysaha ninka oo shaqaysa dad waxa weeye shaqadii imaan weyso muxuu kugu sameeyna inuu ifasliyo shaqada iga ceeriyo oo shaqadii ii diido raatibkiina iga goosto mooyaan halka laga sugi maayo. طيب adiga caafimaad ku siiyay yaa ku bilaabay yaa ku khalqay yaa ku abuuray Allah muxuu ku keenay adduunkan وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آيات كينا شرحه وإلهي وإيفر سبحانه وتعالى أيام بلابي سبحان الله إنكي وحولها إني وأنت هذه لهالليسي قلبي وصوجعي وهنوني وإنا مركا صلاة بلابا أنت كبلابا حتى دان قبيستو ويسقاته إلهي سبحانه وتعالى أو يديستو مهلا قواداس وهذا لسان كوري وحكست لسان wax ka weyn gabadha ka weyn aad heleysaayo qalbigaaga deegayaan ku iri waayo qalbiga raashin fiican hadaad siiso qalbi wax uma taro gabar qurux badan hadaad ka zinaysato la qadar Allah qalbiga wax uma taro waxa weeyaan hadaad wax kasta samaysid qalbiga indho wax ku aragtay qurux badan ama xumaan aad samaysay wax uma taraan qalbiga kaliya waxa daawadiisa ah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub قلبك إله با خلقي إله با أبوري إله با نحلكي سيقانو
qofan ilaahay ahayn ma xallin karo. mithaal yaran oo soo qaato waxaan ku yiri mobilkaad haysatid waa noocee, markaasuu igu yiri Samsung aan haystaa. markaasaan ku yiri Samsung haddii kaa halaabo oo shirkadda iPhone aan geyso ma samayn kartaa? dabcan laa, ma samayn kartuu dhahay, macquul ma aha. ninkii wuxuu bilaabay inuu isfurfuro markaan oo akhadu actaa ay noqotay jawaabtii su-aashayda isweydaarsano. almuhim shirkaddan dee wuxuu idhahay waa shirkad Samsung ayadi keliya samayn karto. nacam iPhone ay samaysane wa sharikaad ukhra qof kasta wuxuu sameeyey soo maaha, adiyaa ku sameeyey, shirkadaada yaa waaye allah jala jalaaluh. ilaahay xalkaaga muxuu ka dhigay oo nolol wanaagsan inaad ku noolaatid oo waxa weeyaan qalbi deganaansho ku noolaatid, murug la-aan aad noolaatid ayuu kuugu talagalay rabbi subxaanahu watacaala. khaaliqii ku khalqay, ku abuuray, awaamirtuu ku siiyey waxa weeyaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. haddii intaas laga tago oo wixii irshaadaadkii rabbi uu ku siiyey ka tagto waad halaabaysaa. haddaad halaawdidna naara lagugu tuuraa. marka haddaa fiicnaatid waxa weye waad hagaagaysaa. waayo mobilka markaad soo gadanaysid waxaa lagu leeyahay qoraxda ka ilaali, biyaha ku dhex ridin, caruurta ka ilaali, qof kale wixii meeshaan kugu jiri uusan kaa arkine lambar salaad ku xiro. irshaadaadkaas markaa raacdid mobilkii wuu cimrinaa, waxaadana sirtaadana la ogaan maayo. waxa weeyaan muddo badan wuu kula yaalaa, shaashadiisan jabi mayso, waayo ha tuurina lagu dhahay tuuri maysid, biyaha ku ridi maysid. irshaadaadkii markaa raacdid mobilkii salaaxdii wanaagiisa iyo jiritaankiisa meesha ka soo baxay soo maaha. adiga jiritaankaaga fi dunyaa nolol macan inaad noolaatid waa inaad ku xirnaataa allihii ku bilaabay. qof baa ku bilaabay, ku khalqay, adoo biyo ah bini aadan kaa dhigay, adoo waxba ogeyn oo hooyada caloosheeda ku jirta, hooyada xataa inaan kaa warqabin kaa warqabay oo ku ilaashaday, adoo dhammaystiran caloosha hooya kaa soo saaray. maxaad u samaysay ilaahay maxaad u samaysay? waa adigoo dhahay ma tukanin. ninkii oohin buu iska bilaabay, aad buu u khushuucay, isbeddel baa ku dhacay. tawfiiq min allah subxaanahu watacaala. wuxuu iga ballan qaaday inuu jidkii toosnaa uu ku toosi doono. waxaan ku yidhi marka gabadha Zaynab aa dhahay, Zaynab iska dhaafi wax kaloo aadan ogeynaad heli doontaa Zaynab ka fiican. waayo ilaahay subxaanahu watacaala qofka haddii dhibaato ku dhacdo imtixaan qabsado wuu ku dhawaaqo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, allahuma ajurnii fii musiibatii haadih wakhluf lii khayran minha. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo ballan qaaday inuu ilaahay u bedelayo subxaanahu watacaala. qofka marka oo xaal waxa uu rabo ma ahan inuu ku dhego qofkaasi isla qoftaasan raba ma aha. ilaahay waxaa la weydiistaa in khayrka ilaahay ku waafajiyo. khayr hadduu ilaahay ku waafajiyo qalbigaagaa degaayo. awal adiga markaad joogtay waxaan ku yidhi Zaynab maadan garan jirin. Zaynab meelay ku nooleed, adna meelaad ku nooleed. calaaqadan waa calaaqa dhow oo sanawaad ah. idinka aas-aasteen oo isjeclaateen oo is aragteen soo maaha. ilaahay Zaynab ka fiican, Zaynabtan saas u jeclaatay ilaah baa khalqa soo maahan. ilaahay ka fiicanoo meel ku ogyahay. ilaahay ku xirno, khasaa'inta asaa kuu furiye, ilaahagaaga ku xirno. markii alxamdulilah ninkii soo ballan iga qaaday salaat alfajr maanta inuu jamaaca ku tukanayo uu bilaabayo iga qaaday waan kala tagnay. wahaakada marka ikhwaanii wa axibaa'i fillaah, ilaahay haddaad ku xirnaato khasaa'intiisa kuu furaa subxaanahu watacaala. haddii maalan walciyaadu yani mithaal ahaan haddaan soo qaadano qof taajir ah oo ilaahay wax siiyey ayaaba qasnaji kaa dhigtayoo wuxuu ku dhahay meeshaan dollaraa ku jiro adaa maamulaayo, meeshaan dhaqaalaa ku jiro dahabaa ku jiro adaa maamulaayo, amarkaagaa socdo, waxaa rabta samayso, raalliyaan kaa ahay ka war. abaar waa isdaysin sooma. qofkiin raalliyuu kaa yahay waxaa rabta sameeyuu ku dhahay, xurriyaduu ku siiyey, wuu ku jeclaada soo maa. hada insaan daciif, waa bini aadan iskhilaafi kartiin. famaa baaluk rabbii tabaaraka watacaala. haddaad ilaahay inaad la munaajato baratid, ilaahay ku xiranta subxaanahu watacaala, khazaa'inuhu mal'a. waxaad filanaysid iyo waxaadan filanaynin, waxaad rajaynaysid, waxaadan rajaysanayn, waxaadan ogeyn, janno u weyn tahay ilaaha gacanta ku hay subxaanahu watacaala. jannada nabi maxamed markuu muxuu noo tilmaamay fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar. marka haddii ilaahay wax inaad ku hagaajiya rabtid ama wax weydiisanaysid hal shay ha ku dhegin.
وحتى خير دي وحنا دي خير جينا يوافج استخارة كمان مدهين إلى وحنا دي خير يهين يا ربي وفقني هدن أهين إلى وحكة خير بدن إسي وحكة خير بدن إلى إسي يا أسامي الكسب وحكة سجع أنتوا كويس سومان أسكورين مركزية قبل لا صدقنا كوري زينا ما ربي بس أيضا كل جيد لا إن يكون التالغيابة إن عدو كون وتالغيابة إلهي وحنا كل جينا إلهي سبحانه وتعالى خزائنه ملأ إلهي وحبنا ويديسه واسألوا الله من فضله فضل الله كثير إلهي فضل جيسا لما سوكوا بكم سيدا أوجد مركولا لي إن شاء الله تعالى إلهي واسع طيب حليم نخلقي نأبورين هي سنة قف كستقول وحدي سمان توقفنا أو حوي لبين دوضان لي قف كس لبين دوض وليه لو قعمود وليه عاف ماذو قبا وأسكو فرحسنتها الصومان فرحسنتها هاي هذا مرك إلكا حنونتو أم إلكا جبو دكتور كدوكو إلكا بدل كيس إلى فول حما كقول عيسى بدل كيس أنت ساكون دولار ويان وادبحين يسا كيس تاسير إلك قاس أيوب كور كبي لعبتاس نود بحين يسا هذا رالي أصوما إذن خالقي هل إلك ما إلكهان دنكسي جوسو وحروق كوغو دري لسان وإلكهان كل حجرو جلعسن أو كلبت باديو كسي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أظهر لما يسرن كسو صاري شكرا إن هذا الصور قومك كما يستاهل شكري محو يا مركا إن هذا إلهي عابدت وحي إلهي قوة القل سميسد إن لهان إلهي وحورا لكينا تكفيرسد دعمهان إلهي وحو جعلينا كقبتد لغهان من إلهي رالكينا تكسعتد مركا صدحون وقنسا عبدا شكورا أدون إلهي شكري لكن هذا خلافته وناق والقو سمي مثل وناقي كحميس ربي سبحانه وتعالى حمان تاسنا الله وكاجازنا سبحانه وتعالى والله عزيز ذو انتقام مرك ولا ليال إلهي وكي أرسي بدن مرك ولا ليال إلهي قبشدي سويرتها وأنا ما قبت بدنا رحمتي سوحا كمدا في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا في سورة طه في سورة فاطر إخواني مركا هيدا محي كترجميسا هدو إلهي ددك وحي هليان كو قبن لها سيدي قف وحناكسن أو كلا قاداي قف أن عبنا ميل أو جانس كو هشي هذا نرح النحريسي وحبا أنا قلبي قاعد كجرين هاد كأرسني صوت كالجبنيسا صوما وهو جانسي نيكن وانا عبتها صومان الله ونجعليه هنا منعبا وناقول الربا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله تبارك وتعالى واكينا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنا واسع بناهي وأنا حنس بدناهي يعني إيقا قرسن أيو ليه ربي سبحانه وتعالى مركز إلهي وسكين برا ونوقع عن هاتيا ونونا حريسا لكن هدو نقبل لها كبر مركز إلهي وحوليه ولو يؤاخذ الله الناس بما وحي كسبت قبل لها الله سبحانه وتعالى ما ترك على ظهرها من داب وحصعد الدون كان كما تجي لهين كل جود ولا قبل لها لكن رحمتي سنكون جوجنايو هبين كيان معصية سمينا صباح دين وصوت ترتنا وصول لبسنا الله وناستوري سبحانه وتعالى جاني سنوسين إلا أن كتوبت كينا ما توبة كينا متكلا وكسي دلان سي سمينا هذا جاني سنوسينا سبحانه وتعالى إلا أد قلبي قاقا حمان يكبو حسنتو وقلبي مذو ووضا النقضو افتينكي كبابو أذيك أد أتري ويسد مالين تاسن هدوكو قبط صوماهن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ما فكنيسد مرك إلهي أنتو نوطرايو وناقيسا رحمديسا إن حديثتي سأنك فايدسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.